shacabka ku nool tuulada laba garas ee degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in aan la soo gaarsiinin deeqaha ay bixiyaan hay'adaha gargaarka. Waxa ay sheegeen in tuulada waxa ay xaq u leedahay aan la soo gaarsiinin isla markaasna magaceeda ku qaato dad kala duwan. Sidoo kale waxa ay baaq culus u direen hay'adaha gargaarka bixiya siiba hay'adda Warda. Madashan oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wanlaweyn ahna gudoomiyaha maaliyadda degmada Wanlaweyn Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto ayaa waxa uu dhageystay cabashooyinka kala duwan ee ay qabaan shacabka ku nool tuuladani. Anagoo ah dadweynaha tuulada laba garas may aad an dhibsanay wali un xaq an lahayni oo hay'adda Warda ku talagalay in laki aamo haayo Wanlaweyn wal un sunu daaro haayo ma jiro warkana ni dhiyo haayo tuulada laba garas liya wixiina wal un qaadado hayna ma degmada Wanlaweyn laki qaadado haayo nin walba ma aragtaa seedo haay intee ku qoyto laba garas ku qoylele waxayna nun xaq lahayni Wanlaweyn laki qaadado hayni bay aad jacalna hay'adda Wardi wali unun ku talagalay oo Ilaahay calafkayna ka dari in un iyo isqaabilno ya aad an rabne wali oo Ilaahay sinin qaado hay'adda Wardi ina un ku halno oo id dhaxdayna ka jirto wali oo hay'adda Warda sunun ku talagal oo dhaxdana ku labaho hayto oo la qaybsado hayto inaan ni la arago waxi un lena xaq un lena Ilaahay sinin oo sinin adeegi oo hay'adda Warda sinin dhiibti ina un halno ya aad fadaane may fadaane ina un tuulida lama garas oo un ka noolno oo haqayna siimbir oo la dhaco hayo ina haqayno may fadaane Wardi ina sinin saarto haqayna no dhiyo haye Wanlaweyn no ku dhiyo haye ina may fadaane hadan Wardi ina haqayna sinin saarto kala jire ina tuulibo kasto oo maqaaje lama garas leeyli qaado raashin oo jiro oo unun sinin wasalaan oo maqaaqayna oo lama garasan laki qaado hay saasta jirte wax alo wali isan sinin qaybta ma sinin daaro may daagaan lama garas ahaan waraashin sinka mooy waninay wixii oo isan sinin qaybta ma sinin daaroyan cadaalada ka rabna ina isan gacantin saartan wali isan sinin qaybta ina isan nasiidaan waa rabna uno reer laba garas wal maanta unanani magacaawdo hayo oo dadweyne kale oo Wanlaweyn degan qaadado hayo jiraan hay'adda Warda waa in ku baahanaa si cadaalad ina maamulkii dadkii maamulada iyo reer laba garas ahaan ina bar ahaan inis aragno hay'adda Warda ku codsado hayna dadweynahaas ma ina banaanka roogan oo xaqa kii oo laba garas aamo hayaan ina nusnun ku saar dadka cadaalad maamulinta ina ogaadaan sida reer laba garas ay jidn wal ineenka jirna dadweyne kale aamo hay ugu dambeyn waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wanlaweyn ahna gudoomiyaha maaliyadda degmada Wanlaweyn Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto waxa uu ballan qaaday in cabashooyinkooda uu gaarsiin doono gudoomiyaha degmada Wanlaweyn iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha deeqda bixiya sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ballan qaaday wixii deeq maanta wixii ka dambeeyo in fadhigooda loogu keeni doono maanta wixii ka dambeeyana tuulada ay heli doonto cadaalad anigoo ah gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wanlaweyn oo dadka heer Wanlaweyn oo 516 tuulo cid kasta cabasho niishaanato way diyaar leeyahay inuu geed iyo gogol ansaano walba ku xaliino hadii isan cadaalad darro tabadaasan annaga maamulka degmada hadii kor warbixino isa sirdaarsideed ma jirnii cidii siin dhibaasi ma niin sheegna maanta niin sheegteen maanta cid alla cidii magaca laba garas ka qaraabadaaso way sun ku ballan qaadaan in hay'adaha amniga aan diraano hay'adaha garsoorka aan diraano wixii ka kalifin arintaas ku dhidhi doono oo sina muu karaano in deegaan magac shay wal la qoro dadka deegaankan al qorne aniga safar shaqo waa ka maqnaayay magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed waqti 10 maalmood ee rooge 10 kaas maalmoodna cabashadii hadda in aan ku jawaabo iyo xaq ii naqati cid kasta oo si dhibaataysan maanta ku bacdi masin dhibaatay doonto oo hadii isin liiski heer laba garas isan aan dhiibteen insha Allah way daarsi doona gudoomiyaha degmada dhamaan cid ay qusayto oo hadii cid alla cidii ku been abuurta laba garas maanta way taaganaa gudaha tuulada laba garas oo mana ogolaado doona in si sharci darre wali ka suubiyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad way siin sheegaane in cadaalad hal doontaan
cid alla ciddii been abuur soo biidi cid alla ciddii musuq maasuq soo biidi iska dayti in aysan xaqiin aanto xaqiin ma aamin karto biidna illaahi casa wajalla arrintaas tilaabo sharci ku qaadaane hay-adaha amniga iyo maanta i barri daarsiyaane si liin horseena cadaaladda cabdiqani maxamed xasan warbaahinta koonfur galbeed Wanlaweyn.